kulankan soo dhaweynta ah ee loo sameeyay wasiirada haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya Deeqa Yaasiin Xaaji Yuusuf ayaa waxa uu qabtay haweenka ururada bulshada rayidka ee ku dhaqan magaalada Kismaayo iyadoona halkaasi ay khudbado kala duwan ka soo jeediyeen ugu horeyn waxa goobta ka hadashay Xaliima Faarax Godane oo kamid ah haweenka ururada bulshada rayidka ee ku dhaqan magaalada Kismaayo kana mid ah haweenkii soo qabanqaabiyay madashaasi iyo sidoo kale Cadar Juuraati iyo Barray Garweyne waxaana ay dhamaantood si isku mid ah u soo dhaweeyeen wasiirada haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya Deeqa Yaasiin Xaaji Yuusuf. wasiiradu waa wasiiradeeni haday xamar tagto haday halkan joogto meel walba waa gurigeedii waa xafiiskeedii waa garab istaagayna waana ku garab taaganahay insha Allah waa kula shaqeyn doonaa Jubbaland waxa isaga hadlayn doontaa haduu Ilaahay idmo inuu xoog ka soo jiro in maxay ahaday gabdho xoog leh ka soo jiraan garabkaaga ah oo ku tarashanaysa insha Allah muxuu aan ka xiriirno waxaanan idin ballan qaadayaa wax walba oo maxay ahaday in soo wajaha in ay Deeqa noo ballan qaadi doonto inaan si toos ah telefonkeedana noogu furan yahay emailkeedana noogu furan yahay aan ula xiriiri doono inaan helo hooy ay gabdhaha Kismaayo ku shiraan gabdhaha Kismaayo in aan helo meel aan ku soo bandhigno hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee laynagu yaqaanay inaan helo tababaro caalami ah oo gabdhaha iyaga aqoontooda kor u qaada saddexda qodob baan ka rabnaa wasiir inaan helo adigoo mahadsan waana codsiga iyaga noo gaarka ah waxaanu soo dhaweyneynaa wasiiradii haweenka qaranka Soomaaliyeed waa wax aan la qori karin weeye ma sha Allah hadaynu nahay sidoo kale waxa soo dhaweynta ka mahad celisay Deeqa Yaasiin Xaaji Yuusuf wasiirada haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya waxaana dhankeeda ay tilmaamtay aad ayaan ka mahad celinayaa sidaad ii soo dhaweyseen horena waad ii taageerteen waana ku mahadsantihiin taageeradiinii horena waxay i siisay inaan maaragtay isbido in layga dambeeyo taasna maaragtay mar walba waa idin ka sugaya insha Allah taala horta waxa Ilaahay mahadiisa ah in oo shalay golihii wasiirada ee dowladda federaalka ay ku shirkeedii qamiislaha ay ku qabsato magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland taasna waxa amadeeda iska leh ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Jubbaland oo iska kaashaday arintaas waxaanan hore u dhicin oo maaragtay xusuus weyn anagoo dhan shalay markaan soo degnay arbacadii wallahi aadan u qiiroonayna aad ayaan maaragtay u faraxsanayn aadan maxamed salaad raadiyaha telefishinka qaranka magaalada Kismaayo.